السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بان idiin rajaynaya walaalaha sharafta badan meel kasto adduunka aad ka joogtaan. Tikniinka ugu weyn ee la isticmaalo intaan boleynka la gaarin baynu insha Allah muuqaalka ku soo qaadan doonaa xilliga galmada. Muuqaal hore waxaynu ku tilmaamnay si farxadda, rayraynta iyo qosolka iyo xiisuhu uu waaro. Dhakhaatiirtu waxay hakad galiyaan galmada xubnuhu ay isku dhaadhacaan si lamaanaha xiisa dhacu meesha uga baxo, inay isku bataan oo galmada ay iska badbadiyaan ay kala xiisa dhacaan meesha uga baxdo. Kadibna waxaa la fasaxaa baashaalka waxa aynu naqaano ama istimtaaca lagu daadagayo ee jidhka ku raaxaysanayo, taas oo farxadii laga helayo oo hormoonadii farxadda la soo daynayo ee dopamine-ka iyo kuwaasi ay soo baxayaan, shumiskii iyo taabashadii inuu meesha aanu ka bixin, baashaalkiina aanu ka bixin, issalaaxiina aanu ka bixin. Laakiin runtii waxa ay su'aali ka soo noqotaa sidee baan u ilaalinayaa inaanan boodlaynka aanan gaadhin. Yacnihii ragga marka la joogo ninku hadduu xaaskiisii baashaaliyo oo uu taabto oo uu shumiyo waxa ka soo dhawaada biyaha. Biyuhu systemyo kala duwan bay maraan. Kaydinta xiniyaha ay ku kaydsan yihiin marka laga yimaado xilliga ay kaysanka iskaga jiraan ninka ma dhibaateeyaan. Xiniya xanuun, dhabar xanuun iyo kulayl kuma abuuraan markay stage-ka ku jiraan. Laakiin haddii boodlaynka la soo gaarsiiyo, yacni haddii stimulation badan ninkii uu qaato, kacsi badan uu qaato, dareen badan uu qaato, xiniyihii waxaa la gelinayaa processkii biyaha lagu diyaarin lahaa si loo soo tuuro ama loo soo saaro. Haddii processkaas la geliyo oo xiniyuhu markaa biyihii ay diyaariyaan, hadhowto ninkii way ku adkaanaysaa inuu dib iskugu celiyo biyihii. oo hadhowto xanuun buu dareemayaa, dhabar xanuun buu dareemayaa, kulayl buu dareemayaa, kaliya xanuun buu dareemayaa, miska xanuun buu dareemayaa. Mushkilad badan baa ku imanaysa haddii systemkii biyuhu ay fadhiyeen laga soo gudbiyo oo ninkii inta uu carin iyo dareen badan uu helo haddana uu biyihii aanu iska sii dayno galmadii aanu samaynin, ninkii dhibaato ayaa ku imanaysa. Marka dhibaatadaas sidee baa looga hortagaa? Muuqaalkeenu halka uu ka hadlayaa taa weeye. Sida ugu habboon ee looga hortago dhakhaatiirtu waxay yidhaahdaan saddex baa ugu muhiimsan. Marka koowaad horta ninku waa inuu isog yahay biyihiisu qaabka ay u soo boodaan ama qaabka ay u soo baxaan. Haddii aad tahay ragga biyaha fudud, baashaalka ku fogaan maysid ama baashaalka ku raaridi maysid xaaskaaga, yacni inaad iskugu fogaataan, jidhkiinni marada aad ka wada qaataan, baashaalkii uu kor dareenkii aad iskugu badin maysid ee kaliya dhunkasho yar oo aan adiga kugu samaynin stimulation biyihii lagu diyaariyo ayuunbaad samaynaysaa. Jidhkeedu aad ugu daadegi maysid, dareenkaaga ileed iyo ka daabashaba waad xakamaynaysaa. taa waad kaga badbaadi kartaa inaan systemka la soo gaadhin biyihii la diyaariyay la doonayo in laga saaro jidhkii oo biyihii ay soo baxaan. Haddii aad tahay ragga biyahoodu ay adag yihiin, baashaalka waxoogaa xaaskaaga waqti fiican waad la qaadan kartaa. Marka aad dareento calaamadaha ugu horeeya dareenkaagu inuu saayid u kacayo ama dareenkaagu inuu bilaabmayo, waad joojinaysaa baashaalka, waanad bedelaysaa muudka oo muudkii aad ku jirtay ee dareenkii markaa kacayay waad joojinaysaa. Xaaladda kale ee runtii iyaduna muhiimka ah waxay tahay haddii xaaska taabataba dareenkaagu uu kacayo, waxa wanaagsan inaanad haba yaraatee aydan taabasho iyo shumis aydan samaynin, laakiin hadallada quruxda badan iyo sida kale ay isku raali galinaysaan iyo naxariista aad u muujinayso iyo hadal caadi ah oo aan dareenka kicin ama waxyaabo kale oo aan dareenka kicinayn, laakiin haweeneydu farxad ay ka helayso oo raaxo ay ka helayso, wada joogaaga ay ku farxayso, waji furan, ammaan iyo xataa dhakhaatiirtu waxay tilmaamaan inuu ninku xaaskiisa si saayida u ammaano waa marka uu doonayo inuu dareenkeedii maskaxeed iyo shucuurteedii u farxad geliyo, laakiin aanu hadal dareenka kicinayo oo isaga ku kicinaya aanu samaynin. Intaasaan ku soo ururnaya. Assalaamu calaykum.